عمريو وقال إنه ما قرنسا هاي وشكل يابلان كوي هالكانيو هاي وحليري كلنا لو قبت جامعات جارهان كلية دقالها oo arday ka qalin jibinaysa ayaa waxay miinan ganacsada ah si uu u sheego erayo kooban ninkii hadalkiisa wuxuu ku bilaabay fursad badan ma aanan haysan oo aan ku soo diyaariyo hadal qurux badan laakiin 5 daqiiqo ayaan intaas gudaheeda aan kugu sheegayaa khibrada ganacsi aan leeyahay haddaad ugu caawisaan wuxuu yiri marka inta ugu caawinaysa gacmaha kor u taagan arday way moogta wuxuu yiri xoogaa yar ayaa gacanta taagay inta kalena ma aysan taagin ganacsadii wuxuu yiri hagaag xaaladan oo kale waxa la yiraahdaa dabacsanaan 10 bilaabay moogta xaaladan oo kale waxa la yiraahdaa dabacsanaan waxayna ka dhalataa caajis ama kalsooni darro iska ilaaliya ganacsiga ma wanaagsana fursad weyn ayaad ku lumin kartaan sidaan waa la socday jeebkiisa wuxuu ka soo bixiyay baqshad wuxuuna yiri waxa ku jirta $1,000 oo maamulka jaamacadda ay soo siisay waxaanan sii doonaa qofka uu gacanta dheer ama gacanta kor u qaado ardayda oo dhan waxay bilaabeen inay gacanta si dheer u taagaan ganacsadihii wuxuu yiri xaaladan waxa la yiraahdaa dhiirigelin wuxuu yiri shaqo ma qaban kartid adigoon dhiirigelin dadka kula shaqeynaayo gacanta taagitaanka ku dhiirigeliyo moogta daqiiqadii labaad ardaydii qof walba waxa uu isku dayay inuu ka gacan dheeraado inta kale ganacsadii ayaa hadlay wuxuuna yiri xaaladan waxa la yiraahdaa tartan way adag tahay laakiin ugu dambeyn qof walba meel wanaagsan ay gaarsiisaa ilaa arday walba wuxuu isku dayay moogta kale gacan dheeraadee sheeko yaab leh arday istaagay asagoo qaylinaya wuxuuna yiri cadaalad maaha sidaan aniga ugu gaaban meeshan waana laga gacan dheerigahay ganacsadii wuxuu ugu jawaabay waa runta meel way kaga wanaagsan yihiin laakiin haniyad jabin isku day yaa ku yiri noloshu waa cadaalad xoogaa kadib ardaygii gaabna wuxuu fuulay kursi gacanta ayuu taagay asagana ugu gacan dheeraaday ganacsadii ayaa hadlay wuxuuna yiri xaaladan waxa la yiraahdaa inaad u fakartid si dadka ka duwan taasoo ka dhigaysa dadka ugu horeeya ganacsiga ninkii la moogto cunugan gaaban si kale u fakari moogto sax laakiin wax badan ma sii socon ardaydii oo dhan kursiga ayay wada fuuleen qaarkood kursiga ayay wax dul saarteen way ku sii istaageen ganacsadii ayaa hadlay wuxuuna yiri xaaladan waxa la yiraahdaa tayo u yeelid taasoo ka dhigaysa inaad tartanka weli ku jirtid ardaydii ma harin markuu kursiga ku istaago isdheereeyay moogta waa gartay 3 arday ayaa ku tashatay inay isqaadaan oo ay lacagta kala qaybsadaan si ay u noqdaan qofka ugu gacanta dheer wayna isqaadeen ganacsadii ayaa wuxuu yiri xaaladan waxa la yiraahdaa iskaashi taasoo ka soo bilaabanaysa shaqooyin hoose hadhowna imaan doonta shirkado waaweyn asoo baddiisa ganacsiga ka baxo haddana mar kale ardayda oo dhan waxay bilaabeen inay isqaadaan saddex ay u heshiiyeen koox walba waxay raadisay qaab gaar ah oo ay ku guuleysan karto ilaa koox walba ay iska agdhawaatay oo wax guuleystay la waayay arday ayaa iska dhawaas qaad waa wada sinmeen arday ayaa soo baxay wuxuu kala dejiyay saaxiibadiis midka ugu cuslaa hoos ayuu geeyay wuxuuna u sare mariyay kii ugu caataysna oo ugu fududa ninkii ganacsadaha ayaa qaylo ku dhuftay wuxuuna yiri xaaladan waxa lagu magacaabaa hogaamiye ganacsiga haddaadan hogaamiye wanaagsan haysan meelna ma gaaraysid ardaygan wuxuu gartay dadkan la saaraya inay muhiim tahay laakiin ay ka sii muhiimsan tahay in qofba ka culus yahay la hoos mariyo ilaa qofka fudud la qaadi karaa waxa laga yaabaa adigu laba qof fudud inaad qaadi karto kaliya laakiin ayagu isku qaadi karin 5 daqiiqo way dhamaatay wuxuu u hambaliyay kooxdii guuleysatay baqshadiina jeebka ayuu gashtay wuxuuna damcay inuu baxo ardaydii guuleysatay ayaa ku tiri lacagta madnasiisid ganacsadii wuxuu yiri waa casharka ugu dambeeyo ee aan idin siiyo ha aaminin inaad wax si bilaash ah ku baran kartid aniga waxaan ahay ganacsade waxaan u imid khibradeyda inaan idinka iibiyo lacagtana waa faa'iidadii ku ilaamo ninka wax bilaash ku yeelaysid wax aad bilaash ku yeelaysid ma jirto yiri sababtoo ah ninkan $1,000 waxa loo soo siiyay maamulka jaamacadda u soo siiyeen inuu ardada 10 soo siiyo sidoo u siinaya marka casharka lacagta la isku daraya بسم الله العادي ما إلا وحي أوجه إني سيأكل العكس سنين هدول العكس ما أقدر قبل العكس يسوي كندري ما يرتري فائدة دي أديات وبصحبة فائدة مركا دولار شو حال روح يا واحد بدني كبرتين أدي شركة أسكا أقلو ها برمقلي شركة دي وأنا جناح سلاح
yaa sama agdhow waa sheeko dhanka ganacsiga ku saabsan waa gartay nin ganacsada oo xogaa bakhiila baqiilaa waa gartay naf ma laha oo macnaha gacan adiga ka soo waa gacan adiga hay nin buu deyn ku yeesho xogaa iska tabar yar deyn ku yeesho waa gartay dhowr maal marka muddadii loogu talagalay inuu lacagta ninku u keeno buu u keeni waayo lacagtii waayay ninkii deynta lagu lahaa tabarta darnaa baa keeni waayo lacag keeni waayo waa gartay markaas tuu yidhi inuu lacagtii maysiyo lacag ma haye iga sugo haye suu yidhi ninkan marka deynta lagu leeyahayna gabar u joogtaa waa gartay markaas wuxuu yidhi waa fursade wuxuu deynta ku cafinayaa laakiinse waxaan rabaa uu yidhi gabadha inay siisid sheeko gabadha hadday siisid deynta ku cafina waa gartay suu yidhi gabadha niyo horta wuxuu yidhi laba mid labadeed wuxuu horta waa ku qoratuuraa uu yidhi hadduu kuu soo baxo gabadhaas qoratuurkeeda uu kuu soo baxo inaad gabadha guursatid waan ku siinayaa uu yidhi deyntana waa cafinaysaa deyntana waa cafinaysaa dii kalena anna haddii wuxuu kuu soo bixi waayana gabadha waad ka leexanaysaa deyntana waad iga sugaynaysaa waa waray adoo aqli ka batay asna wuxuu ugu daray sidaa hadday tahay qoratuurka anigaa qabanayo waa gartay maxaa xigay anaa qabanayo hayaalay waa lagu ballamay kolba meeshu meel dad isyaqaana joogeen aheeday waa dadka la isugu wacay sax isku imaadaa la yiri sax marka la isugu imaaday baa meel webi ah la geeyay dadkii ila waxaa la rabaa moogtahay dadku inay markhaati ka noqdaan wax dhacaya aad iyo aad meel la soo baxa webi baa la geeyay webiga markii la geeyay webiga marka wuxuu leeyahay qarkiisa meesha qarkiisa waxay leedahay dhagxaan fara badan oo isugu jirta madow iyo cadaan noocyo kala duwan dhagxaan loo tiro badan waa gartay oo qaruuraxa meesha ka buuxda aad iyo aad ninkan bac madow soo qaatay dadkiina meesha uu tuban yahay oo markhaati ka ahaa bacad madow soo qaatay wuxuu dadweynow markhaati ka ahaada ninkan gabadhan qoratuur buu yidhi waad ku helaysaa maxaan ku idhaahdaa haddii aan qoratuurkaas uga guulaystana markhaatikaada gabadhaas waa guursanaya wuu isiinayaa deyntina waa ku cafinayaa haddii wuxuu yidhi qoratuurka uga guulaysan waayana deyntiisiyaan ka suganayaa markaasuu yidhi haye laba dhagaxu soo qaatay gabadhana markii hore odagu u sheegayey way yeesho waxay tiri aabba adigu haddaad qaanbixaysid waa ogolahay gabar caqli badanna way ahayd maasha allah ninkii marka diiradda saartay mana rabin ninka oo waynaciis bacmadow soo qaatay laba dhagaxo madmadow uu soo qaaday bacdiiuu ku rida marka gabadhuna marka iyadu way fiirinaya oo maaragta dareen goonihii u leedahay waa gartay dadka kala markhaatiyay meesha ka yihiin wuxuu yidhi bacdaas waxaa ku jira laba dhagax dhagax madow iyo dhagax adag ku jiro waana laba mid madow wuxuu ugu talagalaa isagu gabadhu hadday gacanta gelisada madow soo qabato ugu talagalay oo mid ama sax marka wuxuu yidhi laba dhagax midna cad iyo midna madow ku jirta wuxuu yidhi dhagaxa madow hadday soo qaadato عافية وي وايد دمت كتشد قبلات وايد دمت ودا ما قلت gabadhii markii way faahantay way soo baxday bacdii doontay meesha dhagxaan badan oo tiro badan ku yar yar oo qaruuraha moogtahay laakiin kuwa qolto uu talagal bacbi ku jiraan hal xabay soo qaaday mar la isleeyahay dhagaxa asna uu faraxsan yahay isleeyahay way soo wadaa ay sidii wax taraan turooday ma aragtay ay saas u dhacdeen way istoorto macnaha ma ayadana ugu dan leh waa gartay dhagaxii markii waa faniinay haye markaasay raali gelin ka bixisay dhahdaa hala hada dhagaxii la kufay waa kufay wixii hadaan la kufay dhagaxiina dhagaxdii kale ku darsama haye oo laga ma yaqaan hadda maadaama dhagaxdii aan wada dhagaxdii kale ku darsamay balka meesha ku haray bal dhagaxa meesha ku haray nuucu yahay la soo fiir ya wallahi bilaw aqli كميود شيء دق عقل بدر يا ديو دغخ يا لو سو فيرشاس waa dhagax madow labadii dhagax bay kala badbaadisay ilaa in moogta laba dhagax mid madow ahayd haday soo qaadaba dhagax madow soo qaadi lahayd aad ina sacdan soo qaadin maluugiye marka ninkii sidoo ku fashalay wuxuu ogaaday baqiil marka laba mar dadkina waxay leeyihiin dhagax adag gabadhu qaaday maadaama meesha laba dhagax ku jirta cadaan bilaayo marqaata ka dhigtay marka baqiil
laba mar u khasaara marka la leeyahay waa sidaa niga marka gabadhii ma iska daayay waa ku qasban yahay ilaan waa laga garayaa shay maxaa yeelay deyntiina waa cafiyey waa qortuur kaga dhimay oo horeba u yiriba haddii la guuleysto wuxuu yiri qortuurkaas dii laga guuleysto deentana waa cafinaya gabadhan waa ka leexanaya laakiin hadda ku guuleysto deentana waa cafinaya gabadhan waa qaadanaya waxaas qiyaamada ugu leh marka khiyaanada qofka hadduu sidiisa oo khiyaano bilaabo waxay u badan tahay inuusan guuleysan u badan walaa khiyaanadu waa ay xun tahay sheekooyin fara badan oo khiyaanooyinkaas ka hadlaya jira oo haddiiba qofku uu wax ku dhaqaaqo khiyaano ah waa inay qabsataa qayb munaafaqada ka mid ah ma fiicna marka mashiinkaas uu kula rogmanaya barnaamijku waa barnaamijkii xigmad ee ka bixi jiray Camaari channel waxaan rabnaa in aad channelka subscribe saartaan aadna noola socotaan waxa aan ku shaqaynayno oo soo diyaarinayno waa dhiirigelinta fikradaha comments-ka aan ku helno ayaan fiirinaa kadibna waxaan iraahna dadkani maxay u baahan yihiin barnaamijkan sida ula dhaceen haddii aad tiraahdaan xigmad wax jira ma aha وجوجيننا اللي دتك أنا وحصل ديارنا وادينك فكرتنا وتسوقينا لقريتنا سيدو كله لكن حسوقنا سبسكرايب إن دتك تسيجر سنشارت كادين جزاز ما يبون